wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Marwo Samson Cabdi Aadan oo xadhiga ka jartay dugsigan hoose dhexe ee laga yagleelay galbeedka magaalada Hargeysa gaar ahaan nawaaxiga buurta kala jeexan ayaa ka koobnaa 2 galaas iyo waliba xafiiskoodii waxaana dugsigaas loogu magac daray Umar Maxamed gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee dhinaca galbeedka oo halkaasi ka hadlay ayaa si kooban u sharaxay faa'iidada dugsigaasi gudoomiyaha jaamacadda Camuud Dr. Salebaan Ahmed Guuleed ayaa isaguna waxa uu tilmaamay baahida loo qabay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan madasha laga yagleelay dugsigaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay waxaana tilmaameen inay baahi weyn u qabeen iskuul waxa loogu dhawaa 18 May carruurta halka ka kala hadal waxay u tagi jirtay 18 May hase ahaatee maanta ilaahay waxaan ugu mahadcelinaynaa dawladdeena sharafta leh iyo mas'uuliyiinteedaba ee noo sameeyay iskuulka wanaagsan ee ardayda noo dhiganayso hase ahaatee baahidii aan qabnay boqolkiiba 90 way dabooshay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Marwo Samson Cabdi Aadan oo gabagabadii ka hadashay ayaa waxa ay tilmaantay in wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ay ka go'an tahay sidii loo gaarsiin lahaa goobaha waxbarashada meelaha baahida weyn u qaba way xaafadani waa xaafad marka hore isku tashatay way dhulka idinka bixiyay idinka ku tala galay in iskuulka la idin dhiso annaguna talagalkii aad keenteen ayaan runtii idii ajiibnay waxaan jecelahay in iskuulka aad u ilaalisaan waan idii kordhinaynaa waanu ka dhigaynaa fasalo badan baanu ku kordhinaynaa waxaan doonayaa laakiinse inay carruurta aad ka waanisaan inay wax ku qorqoraan inay inta aynu deyrka u samaynayno inay iskuulka la ilaaliyo marka la ilaaliyo insha Allah iskuul weyn baynu ka dhigi hadhow wax ka badan baa iman doona MCH ka dhulkiisa hadaad bixisaan xanaanada wasaaradda caafimaadka oo ka gaarsiinayna laakiin dhul la'aan baa xaafadan taalo waynu garanaynaa waa xaafad qaali oo qiimo loo sida dhul bilaash lagu helaa way adag tahay marka runtii waan u sheegayaa wasaaradda caafimaadka annaguna waxaanu ku dadaalaynaa insha Allah Ilaahay bayna la qaban doonee inuu iskuulkan kordho carruurta aad sii lugaysiinaysan waliba imka uuladii oo dhani halkan ay ka dhiganaysaa soo maaha waa kuwa waaweynaa insha Allah kuwa waaweyna waynu u dhisi fasalada laakiinse waxay dadaalkiinu hanala shaqeeyo ونala shaqeeya ونala ilaaliya insha Allah aad baanad u mahadsantiin iskuulkana Ilaahay nooga dhigo inuu sharax xadhiga iskuul carruurta ka soo baxda ay noqdaan kuwa dalka iyo diinta iyo dadkooga anfaca